hooyada dhashay marxuumad Ruqiya Siciid ayaan leh oo si arxan dara ah sanadkii hore loogu dilay magaalada Hargeysa ayaa baaq u dirtay madaxweynaha Soomaaliland waa kan wariyaheena Maxamed Faarax Cumaade oo mar kale warbixintaasi noo eegaya hooyo Maryam Awjaama oo hooyada dhashay marxuumad Ruqiya Siciid ayaan leh oo sanadii hore la dilay loona dilay si arxan dara iyadoo lagu qariyay meydkeeda god laga dhex qoday meel qarsoodiya ayaa waxay ugu baaqday madaxweynaha Soomaaliland in la fuliyo xukunkii ay maxkamaddu ku riday eedeysanayaashii loo qabtay dilkii marxuumadda waxaana iyadoo arintaasi ka hadlaysa ay tiri waxa la hadlaya Soomaaliland waxa la hadlaya xukuumadda waxa la hadlaya culimada waxa la hadlaya ahlu diinka kiiska nool ku aaska ee si uu haysto madaxweynuhu ee saddexda maxkamadood ay xukumeen wuxuu ku haysta dulmiga ma fahmin kitaab jaamaca uu u dhaartay dalka iyo dadka wax allaale wuxuu ka fuliyayna ma jirto wuxuu xagoogaal weeyaan waxaan leeyahay Allahu akbar qisada inta leeg ee gaaliga islaamka ka xanaaqeen yahuudu markay qasadii dilaysay ay qaabtaas ma dhicin iyo qisaastaas mid ma dhicin islaamka laguma hayo madaxweynaha waxa leeyahay qisaasta inta leeg aan ugu sameeysan balaayadu ka dinkaaga way soo gali daqiiqad bay u soo gashay ubadkaaga iyo gurigaaga soo gali qodaxdaad qaadatay iska ilaali waxaan ku leeyahay madaxweyne arrintaasi degdeg ah u fuli hadaa tulin weydo faray ka baxaysa هذا تولين ويدو وراي كبحيسا وظلمي سند يافر بلاد بين موطني waxaan ugu tagay ayada ku dul qadeynaysa gedigood waa ugu jireen godkii ay ku riday bay ku qadeynaysa dulmiga inta leeg wax allaale wixii islaam oo dhan waa ka xumiyay madaxweyne xaqa hoo ku eedam kitaabaad gacanta saartay atii ilaah baa mas'uulana ku raaciyay oo la mas'uul Maxamed Faarax Cumaade Somali Channel Hargeysa